madarasada quraanka kariimka ee alfurqaan ee ku taala degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag ayaa wali waxa wax laga bartaa looxii iyo khadkii iyo qalankii markaas lagu qoray quraanka waxaana barta arday aad iyo aad u fara badan waxaana maamulo ka Sheekh Cali Afcase iyo waliba macallin kale oo markaas malcamadaasi dadka dayarta quraanka wala dhiga malcamadan ayaa waxay asaasan tahay muddo aad iyo aad u dheer lagama dhigto wax buuga oo markaas caruurtu malcamadaasi dhigata ama madrasadaasi ay dayacdo madrasada oo soo jirtay muddo aad iyo aad u dheer ayaa waxa iga waramay Sheekh Cali Afcase mar aan saaka aan booqday wuxuuna bulshada Soomaaliyeed u ka codsaday madrasadaasi qaybaha ka dhiman in markaas lagu soo kordhiyo waxna laga qabto waa kan Sheekh Cali Afcase oo iga waramaya marxaladii kala duwaneed iyo sida wali quraanka kariimka looga barto looguna barto khadkii iyo looxii bismillaahir rahmaanir rahiim madrasada magaceeda waxa la yiraahdaa madrasatul furqaan li tahfiid al-qur'aan al-kariim fi Ceelbu bay ku taalaa waa madrasada qadiima in badan ayaa la soo dhiganayay waa madrasad jiraa ah awalan waxay ka soo bilaabatay xaafadda tan sare ee degmada Ceelbu meel hadda laga asaasay madrasad kale ayaa laga soo wareejiyay waxa loo wareejiyay iskuulkii hore oo labada maqsin ahaa iyo office-ka oo dawladda Soomaaliya maxaad siyaad bare ay dhistay ayaa markaa ardadii loo wareejiyay waqtiga hore waxay ka soo bilaabatay xaafadda sare aan sheegayo madrasada Cariisha bay ahayd 2000 waxay ahayd 1992 kabacdina waa laga raray halkaas loo wareejiyay kabacdina madrasada tan ayaa la dhisay waxaa dhisay Xaaji Maxamuud Axmed in la yiraahdo Maxamuud Xawar ku magac dheer isaga iyo adigu walaalihii waxay u waqfeen oo loogu talagalay hooyadood ayaa loo waqfay khayr badan ayay ka heshay ilaa iyo 2001 aad baa arday badan uga baxday dafcada badan oo quraanka ku dhameeyay wax dalka jooga iyo wax dibadda jiraba way leeyihiin ilaa iyo haddana sida ayay u camiran tahay caruurtu waxay wax ku qaadataa alwaaxdii hore looxdii ayay ku dhigataa dabcan way dhacdaa qayb looxda hadda dadkii qori jiray iyo inay iska dhamaadeen oo ay dad aakhiro noqdeen oo kutublay weeye qaybi inay buug ku dhigato waa laga yaabaa ardadu aad bay u camiran tahay waa lagu dadaalaa waxa loo dhigaa higaadii Soomaaliga ahayd ayaa loo dhigaa alif wax male ba hoos ku hal ta kor ku laba alif la kor dhibay ana alif laba kor dhaban bismillaah bisbaal loo sarbeysay lagu reebay millaahi miim loo sarbeeyay higaada ajamiga inagu arab manihin caruurtu taayay wax ku fahantaa ilmu higaada hadii uu fahmana marka wuxuu aad iyo aad ayaa wax ugu kala soocmayaan hadhowna kitaabka isaga ayaa iska akhrisan doona bila macallin marka madrasadu sida ayay u camiran tahay wax naga dhimani way jiraaniin xagga kutubta iyo blackboard-yada iyo qalmaanta iyo bawaagta iyo waqtiyada xagaaga oo kale maadooyin kale waa lagu qaataa sida maadooyinka asaasiga afarta maado Ingiriiska Carabiga Soomaaliga xisaabta qayb kutub loogu mariyaa way jirtaa aad bay u camiran tahay insha Allah waxaan u rajaynaynaa cidii waalidkood u waqaftay iyo iyaguba inay khayr badan Ilaahay ka siiyo anaguna diinta aanu ku fidinayno iyo juhdiga aanu gelinayno oo aanu ku jarmaadsanahay oo aanu barqa imanayno oo aanu ku carruusanahay ilaa iyo maghrib inuu khayr badan la naga siiyo wixii muxsiniina oo wuxuu nagu kordhin kara xagga kutubta inay naga caawimaaniin iyo cimaamadaha koofiyadaha qalmaanta blackboard-yada bawaagta waxaan codsanaynaa in la ka siiyo gacan waa diin Ilaahay cidii camirta oo wax ku darsataana khayr badan bay ka helaysaa xagga dhismaha ka waran ardayda ku fahantay xagga dhismaha ardada xaqiiqatan xoogaa bay cidhiidh ku tahay hase ahaatee dafcado ayaa loo qaybiyaa si ay qaybiba mar u soo gasho oo qayb ay mar uga baxdo oo way istaba maraanin qayb iskuulka ku maqan iyo qayb markaa joogta markii qaybtaas xagga iskuulka ay ka timaado oo qaybtan macaamada ku hadhaayay iyaguna iskuulka u baxa inta macallin ka hawlgashaan maadaama ay dabcan waxaan kaga hawlgalaa aniga oo mas'uul ka ah oo macallina iyo macallin weheliyo isaguna iyo kaaliyayaal badan oo ilaa 4 gaaraya oo ardadii oo ka baxday madrasada quraanka kariimka ee alfurqaan ee ku taala degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag ayaa waxa laga dhigtaa wali looxii khadkii buugaagta haatan caruurta looga soo iibsho suuqa ay dayacdo markaas markii quraanka ay ku dhigtaan ayaan lagaga dhigan
waxaana kaloo galinka dambe dhigta dad aada u waaweyn oo ay ka mid yihiin hooyooyinka magaaladani ceelbu ee gobolkani sanaag ayaa iyaguna ka faa'iidaysta madarasadaasi oo qur-aanka ka dhigta waxayna haatan ay marayaan meel aada iyo aada u sarreysa xagga qur-aanka kariimka waa hooyooyinka waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur degmada ceelbu ee gobolka